وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان أمد الصوماليات ملك استاذ جوكتان بوحان يدقوا السلامين سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام قيمة بدن كدب وحان ربا هالكان إنا ديغا سو قدبيو برنامج اللي يراهدو همي إيا هرمر. برنامج كهمي إيا هرمر وبرنامج أن أقول تلقلي إن دلنيرادة إيا دمان أمد الصوماليات أن أقول إفيو tubta iyo habka ugu fiican ee qofku uu ku gaari karo horumar ballaaran nolosha qaybaheeda kala duwan uu ku gaari karo. Waxa shaki ku jirin in qof kasto oo idiga mid ah in uu rabo raadinayo had iyo jeer inuu nolosha ka gaaro horumar ballaaran oo leh dhinacyo fara badan. Haddii ay ahaaleed dhanka dacwada diinta, dhanka dhaqaalaha, dhanka siyaasadda, dhanka arrimaha bulshada iyo qaybaha kale ee runtii insaanku uu u baahan yahay inuu ka hormaro. Laakiin waxaa su'aal mudan ama la isweydiiyaa waa maxay habka ugu fiican ee horumar ballaaran insaanku uu ku gaari karo? Yani qaabkee guul ku gaari karaa? Guul ayaan rabaa laakiin see ku gaari karaa? Horumar ayaan rabaa see ku gaari karaa? Maxaan samayn karaa? Waa maxay tubta ugu fiican iyo habka ugu fiican ee arrintaas lagu gaari karo? Kadib markaan akhriyay Quraanka Kariimka oo aan dib ugu laabtay oo aan akhriyay siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aan aad u baaray taariikhda islaamka iyo taariikhda dad fara badan ee nolosha ku guuleystay, waxaa ii soo baxday in qofkii raba in uu horumar ballaaran nolosha uu ka gaaro in ay jiraan 7 tiir ee asaas u ah horumarka insaanku inuu gaaro ay tahay. Yani waxaa jira 7 tiir ee runtii laf dhabar u ah cid kasta ee rabta inay nolosha ku guuleysato kana tagto raad fiican oo nolosha runtii ay ku leedahay. barnaamijkan la yiraahdo hami iyo horumar waxaan rabaa inaan ku sameeyo 7 xalqo oo xalqo kasto ay ka hadli doonto hal tiir oo kamida tiirarka horumarka insaanku uu ku gaari karo. waxaan rabaa inaan bilaabo tiirka koobaad. يعني waxaan dhahnay 7 waxa jira tiir ee insaanku uu ku gaari karo inuu horumar gaaro. tiirka koobaad oo runtii baaritaan fara badan ee aan ku sameeyay taariikhda sida hore aan idigu sheegay aan isleeyahay waa wuxuu ku jira kuwa ugu muhiimsan ee qofkii raba inuu horumar gaaro uu ku gaari karo waxa waaye waxa loo yaqaan al-himma al-aaliya ama si kale markii loo yiraahdo han sare iyo halgan adag. يعني insaanku inuu leeyahay han sare inuu ka fikirayo waxyaabaha waaweyn inuusan ka fikirayn ama uusan dhag jalaq u siinin waxyaabaha loo yaqaan safaasif al-umuur arrimaha yaryarka ah oo hoose inuusan ku fikirin ee uu ku fikiro waxyaabaha waaweyn. taas waxay keenaysaa inuu qofku ku yeesho nolosha raad inuu ku yeesho inuu noqdo qof nolosha wax ku soo kordhiya. لأنه قاعدة واحد جرت لها يسا هذا النولش وحكسه كردين كرين أذيك أيها زائد كؤه معنا. إذا لم تزد في الحياة شيئا فأنت زائد عليها. نولش هدانا وحكسه كردين أذيك أيها رنتي وليس لبات كؤه. سيصدرت هذا قف كستو حلقة الدنيا إنه رات في عن نولش كريبه أنت أوسن تجين كهر أو دنيا أوسن كتجين كهر. إذن هم جسره أما هم العالية وحلو يقانو و tiirka koobaad ee tiirarka horumarka insaanku uu ka hormari karo. marka runtii saas u fiirshay taariikhda islaamka oo aan baaray dadka guuleystay oo muslimiinta ahay iyo dadka kale ee dunida guuleysta waxay ahaayeen dad hamigoodu aad iyo aad u sareeyo meelo waaweyn ka fikiraya oo aanan ku mashquulin waxyaabaha yaryarka runtii aanan ku mashquulin. haddii aan tusaale u soo qaadano hal qof ee nolosha aad iyo aad ugu guuleysta aan isla dhihi karo wuxuu kamid yahay mid kamid ah dadka nolosha ka sameeyay horumar ballaaran. ninka waxa la yiraahdaa waa wada taqaanaan Umar bin Abdul Aziz. wuxuu ahay khaliifihii oo lagu tiriyaa oo dadka culimada qaarkood ay ku sifeeyeen inuu yahay khamisul khulafa ar-rashidin. ninka shanaad ee marka la yiraahdo khulafadii islaamka horumar ballaaran ka sameeyay dhinacyo fara badan ee nolosha ah ka sameeyay.
عمر بن عبد العزيز سفوينكي أولها وحا ويناي صفدا اللي يراهدو هم سره أيو رنتي لهاي أيو أسري هم جيسا أصيغ أيا كشاكين أيا تاريخ دمركو ليهاي إن لي نفسا طواقة وحان ليهاي نفهلو بدن أو جعل إني هرمر جارتو markaas wuxuu ka sheekaynayaa afar shay oo uu hamiyay saddex kamidana oo nolosha ku helay mid kamidana aan rajaynayno inuu helo insha Allah ta'ala Umar bin Abdul Aziz wuxuu dhahay يعني نفسي إن لي نفسا طواقة وحان ليها نفتاس آدك أهلوبيسة أو ربط إني هرمر جارتو تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها يعني وحان أهلوبي أما أن جعلادي إن أنقورسدو فاطمة بنت عبد الملك أو إهاد جبر آد وقطرة أو ضد فرب بدن أو بقرة كسو جيدة أهنا جبر آد وقيمة بدن أي نفتي دو جعلاتي أو أن أهلوبي وان راديي فتزوجتها وأنقورسدو يولي runtii waa hami sare oo aad iyo aad u fiican thumma taaqad nafsi ila alwilaaya mar labaad naftayda waxay u hilowday ama ay jeclaatay inaan noqdo amiir inaan noqdo fawallaytuha amiirnimadii ayaan helay markaan raadiyay oo waqti aan ku bixiyay oo dadaal aan ku bixiyay waan helay markaas uu leeyahay Umar bin Abdul Aziz thumma taaqad nafsi ila al-khilafa naftaydu waxay mar saddexaad u hilowday in aan noqdo khaliifatul muslimiin yani muslimiinta dhan inaan hogaamiyo fa adraktuha waan haleelay oo waan noqday ayuu leeyahay thumma markaas ayuu ku sii darayaa am wal aana taaqad nafsi ila al-janna hadda naftaydu waxay u hilowday inaan janno helo ayay naftaydu u hilowday فأرجو أن أتركها وحرجينا يا إنا نحليله بالفيرية سيدنا عمر بن عبد العزيز وحو هاي ننهمي سرله ربنا نلوش إنه وحكسو كردي وحو هاي حكم كخلافة لبصروا قياستي لبدا السنة عدالة ديسي اسبدل حقل أي مسلمين تكون عاي وآدي آد أبلارا إلى حيوان دي يحوله أي صلاة داقان ووحوح من اللوايو برواقنا مالك سنة أي برواقنا قطي دينتي الإسلام كان وأجرجاري الدنيا آخرة برونتي وأجرجاري وحنا كهلي يعني هم جاسرة ورونتي أوليه وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب وكن راضيا